Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. Today our lesson is about adjective. An adjective are words describing the qualities or state of being of nouns. Walaalayaal kusoo dhawaada casharadeena waa naga mahadcelinayaa inaad videogan kasoo qayb gasheen. Marka maanta waxaan ka sheekeynaynaa adjective. Adjective waa sifo. Sifooyinka waxaa waaye ereyo oo si u faahfaahinayo ama ka sheekeynayo magac noun ama magac uyaal pronounka. Aan usii gudgalno markaasna si fiican iga sii faahfaahin. Let's get into the lesson and I will describe everything thoroughly. Let me give you examples of adjectives. Enormous, dog-like, silly, yellow, fun, fast. They can also describe the quantity of nouns. For example, many, few, millions, 11. Hadda misaalaan soo qaadanaynaa oo sifooyinka kuwa Ingiriiska meesha ku qoran baan akhrini markaas kuwa af Soomaaliga aan ku tafsirin insha Allah. Enormous, weyn. Misaalaan ka soo qaadno jumlad oo ku dhex jirto sifo. Kabtaas waa kab weyn. Kabti waa noun, magac. Laakiin weyninta kabtaas waa kab weyn. Weynti baa sii faahfaahinayso kabta. Waxaas baa la dhahaa sifo. Haye. Dog-like, ay u eg. Silly, doqon. Yellow, jaale. Cambuurkaas waa cambuur jaale. Waa fahamteen hadda sifooyinka meesha ula jeedada leedahay. Fun, farxad. Sifooyinka waxay sii kala faahfaahin karaan tirada magacda sidii badan, yar, malaayiin, 11. Buugagta waa 11. Taas waa sifo iyadana. There are 8 types of adjective. The first one, proper adjective. Second, descriptive, qualitative or attributive adjective. 3, quantitative adjective. 4, numeral adjective. 5, demonstrative adjective. 6, distributive adjective. 7, interrogative adjective. And the last one, possessive adjective. Sifooyinka 8 bay u kala baxaan. Waa kuwaas meesha aan kusoo tiriyay oo ku qoran number 1 ilaa 8. Marka kusoo ceshta sifaha u akhriska u keentiin. Kadib marka waxaan galeynaa faahfaahintooda. A proper adjective is one derived from a proper noun. For example, the English language, the Indian Ocean, the Victorian attitude. An adjective is usually placed before the noun. In this case, English language, the noun is the language, but what language are you talking about? So the one that is proper for the language that we are speaking of is English. The Indian Ocean, the adjective is Indian. Specify which ocean we're talking about. The Victorian attitude, Victorian is the adjective. Walaalayaal, proper adjective waa sifo oo tilmaamta saxda ah waa mid laga soo qaatay magac haboon. Tusaale ahaan luqadda Ingiriiska, badweynta Hindiya, dabeecadda Victorianka. Marka meeshaan nounka mase magaca waa luqad, laakiin luqadda tan sii faahfaahinayso waa Ingiriis. Maaha Sawaaxil, maaha Soomaali, Ingiriis. Badweynta Hindiya waa fahanteen aan dareemayaa. Meeshaas waxaan rabaa inaad ka bixisiin adjective-ka. Tani ugu saacideeyana adjective-ka meeshaas ama sifada waxaa waaye India. Dabeecadda Victoria waxaa waaye Victorianka waaye adjective-ka. Waa isla soconnaan dareemayaa. Descriptive adjective is one that shows the kind and quality of a person or thing. For example, a brave person, a beautiful child, a careful mother. Brave, beautiful, and careful here are the adjectives.
Adjective-kan waa mid muujisa nooca ama quality-ga qofka ama shay. Tusaale ahaan, qof geesi ah, ilmo qurux badan, hooyo taxaddar leh. Meeshaas adjective-ka waxaa waaye geesi, qurux iyo taxaddar. Quantitative adjective is one that shows how much quantity of a thing is meant. For example, I did not eat an apple. He ate much bread. You drink little milk. Sifadan waa mid muujinayso inta tiro shay loola jeedo. Tusaale ahaan, ma cunin tufaax wax ah. Wuxuu cunay rooti badan. Waxaad cabtay caano yar. A numeral adjective is one that shows the number or serial order of persons or things. They are further divided into two main classes. Definite, which is 1, 2, 3, 4, or first, second, third, or single, double, triple, while indefinite are some that don't show the exact number. For example, all, some, enough, many, few, several. Sifadan waa mid muujiya tirada ama siday u kala horeeyaan dadka ama waxyaalaha. Laba qayb bay usii kala qaybsan yihiin, indefinite iyo definite. Definite-ka waa 1, 2, 3, 4, mase baalkaas koowaad, kan labaad, kan saddexaad, mase waxa oo halka labada ama double-ka, triple-ka. Indefinite-kana waxaa waaye sidii yaraan, badnaan, tiro yar, tiro badan, kuwaas waaye. A demonstrative adjective is one that points out which person or thing is meant. For example, this boy, that boy, those men. Sifadan waxa waa mid oo ku tusayso waxa aad ku farta ku fiiqayso. Mithaal, wiilkaas, qofkaas, nimankaas, naagahaas. While distributive adjective is one that refers to each one of a number. There are 4 in number. Each, every, either, neither. Don't confuse this with numeral. They are quite different. Sifadan waa mid tilmaamayso mid kasta oo tiro ah. Waa 4 tirooyin. Midba, kulli, midnaba, iyo midkoodna. Interrogative adjective is used to ask a question. For example, whose pen is this? What book is that? Which flower do you like best? Whose, what, and which are the adjectives in this case? Sifadan waxaa loo isticmaalaa in lagu weydiiyo su'aal. Tusaalo, qalinkee kan yahay? Buugu waa kee? Ubaxkee ugu jeceshahay? Meeshaan adjective-ka waa kee. And the last one is possessive adjective, which are my, our, your, his, her, its, their, when used before a noun. Not to be confused with the pronouns. The difference is the adjective is always followed by a noun, while the pronoun is used without a noun. For example of the possessive adjective, your phone, my brother, his dog. Examples of the possessive pronoun: his, hers, yours, theirs, ours, mine, without a noun. Walaalayaal, sifadan waxaa waa ereyada my, our, your, his, her, its, waa kooda, keena, keyga, keeda, kiisi. Waxaan rabaa inaan iga fahamsiiyo inaan isku qaldamin magacyaalkii iyo sifadan. Possessive labadooda la wada dhahaa, laakiin kan adjective-ka markuu yahay markasta waxaa ka dambeeyo magac, noun. Mithaal, your phone, telefoonkaaga. My brother, walaalkey. His dog, eygiisa.
laakiin possessive pronounka loolama isticmaalo magac keligiis asagoo qalalana la isticmaalaa sida his, hers, yours, theirs, ours. Kayga, kiisi ma la jiro magac. Waxaa u dareemaynaa fahanteen hadigaa fahmin hoos ku soo qor. Casharadeena maanta halaasay ku eg yihiin. Macsalaama isu kaayakeen sabtida dambe. Thank you so much for being here. I really do value your views. If you haven't subscribed, please do so. And then please, I ask you one little thing. Please kindly share with your friends and families. See you next Saturday. Have a great week and a weekend. Bye.